حد وين ayaa dul hoganaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo golihiisa wasiirada qaar kamida oo la soo shaqeeyay iyagiina waxay isku haystaan wasiirkii lacag buu dhacay madaxweynihii lacag buu dhacay hebel lacag buu dhacay lacaga la isla dhacay ana u dhiibtay oo uu boobay dhinac buu loola go'ay meel buu ku xareysto ku shubtay waa wada lahayd waa fadiixad weyn waa ceeb weyn weeye isku shaandhaynta golaha wasiirada waxa keenay waa arin tuhun oo soo kala dhaxgalay wasiirada iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si degdeg ah hore aan loo shaacinin ayaana wasiiradii dhulka xilka qaadis iyo isku bedelba lagu sameeyay arinta gobolka Gado meeshay ku dambayn doonto war maxaanu sameeyay ba ka dhici doonta raas Kamboni ayaa caano noqon doonta caanay noqon doonta arrimaha dawladda federaalka iyo Jubbaland Axmed Madoobe khiyaamo laguma gaaro arin la khiyaameeyo Axmed Madoobe horay baan idin sheegay waa munaafiq khiyaamada ubuna bartay wax kala ma baranin sixir iyo jin iyo balaayana waa la shaqaystaa oo wax walba waxa weeye u kala tuuraya warsoo dhawaada wadayaal waxaan rabaa inaan muuqaalkan ku dul istaago xogii ugu dambeeyay isbedelka lagu sameeyay golaha wasiirada iyo wasiirada qaarkood oo sira badan banaanka keenay fadeexad weyn dul joojiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale sababaha keenay in isku bedel lagu sameeyo golaha wasiirada oo waliba si degdeg ah xilka qaadis iyo isku bedelba loogu sameeyo waxaan dul istaagi doonaa lacago malaayiin oo la dhacay laguna eedeynayo ama isku eedeynayaan qaar kamid ah wasiiradaas iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaabka lacagtaasi ee loo dhacay iyo sidoo kale waxyaabaha ay isku hayaan iyo sabab lacagahaasi cidda lagu eedeynayo ee meesha ku shubatay ayaan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale dul istaagi doonaa khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed ama gobolka Hiiraan khiyaamada la khiyaameeyay shacabka ku nool gobolka Hiiraan iyo maroorsiga awood ahaan lagu maroorsaday wixii horay ay ku heshiiyeen shacabka gobolka Hiiraan ama siyaasiyiinta gobolka Hiiraan iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ayadana aan waxba ka hirgelin waxaan dhanka kale eegi doonaa xaaladda ka taagan gobolka Gado oo ayadana meeshii ugu xumayd maraysa odayaasha degmada Garbaharey oo war ka soo saaray qorshayaasha iyo mowqifka dawladda federaalka iyo hawlaha ay ka wado gobolka Gado iyo sidoo kale Axmed Madoobe oo ayagana ay dhaleecayn dusha uga tuureen khiyaamooyinka Axmed Madoobe uu la damacsan yahay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee gobolka Gado la keenayo sidii tiiraas Kamboni ka dhacday oo kale iyo tu ka daran ayaa iyadana laga saadaalinaya waan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka la saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay maanta horta waxaa dhacay isku shaandhayn xilka qaadis iyo xil magacaabis golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwa kala saameyn ma lehe midba aad bulshada Soomaaliyeed ay u hadalhaysaa waa wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirasaaq oo xilkii laga qaaday lama bedelin isagu xilkii baa laga qaaday laba arrimood ayay Cabdirasaaq iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud isku hayaan baa la yiri xoga kalena way soo baxaysaayo waxa bixiyay taageerayaasha xisbiga UPD Xasan Sheekh Maxamuud taageerayaashiisa ayaa bixiyo waa xoga kale oo waxa durba waxa way fadeexad loo galiyay wasiirka Cabdirasaaq waxa leeyahay lacag malaayiin oo dalku u baahanaa ayuu wasiir Cabdirasaaq meel ku shubtay baa leeyahay lacag malaayiin ayuu wasiir Cabdirasaaq meel ku shubtay xasan sidaasay isku qabteen baa leeyahay wasiir Cabdirasaaqna wuxuu yiri madaxweynaha waxaan isku qabanay arinta la xiriirda Hiiraan ama Hiirshabeelle heshiis hore jiray oo ah in caasimada iyo madaxweynaha Abgaal iyo Xawaadle ay kala qaataan oo sidee u kala qaadanayaan hadii caasimadii laga dhigay Jawhar madaxweynaha waa in la siiyo beledweyne oo Xawaadle la siiyo ee Abgaal caasimadii iyo madaxweynihi isku ma darsanaysaan
gacan bidixayn la gacan bidixiyay baan ahaydo anigu dhowr sano ka hor baan ka intaasoo jeer baan ka hadlay ilaa 3 sano ka hadlay oo la war nimankan xawaadle wala gacan bidixiyay laha cabdirasaaq soo intaa buu sheegay laakiin xaqii UPD xasan taageerayaashiisi ayaa waxa laga soo tuuray gamtaal oo waxa la yiri wasiir cabdirasaaq iyo xasan waxay isku qabteen in dhaqaale fara badan oo la rabay in qaranka u soo xaroodo ayuu xasan ninkii cabdirasaaq meel ku shubtay waayay lacagahaas waxa lagu macneeyay inay yihiin heshiisyadii shidaal qodista lacagii hordhac ahaayee xaquuqalinka ahaayee la siiyay in waxa la leeyahay wasiir cabdirasaaq meel gaar ah ku shubtay haddii lacagta la rabay inay si fiican meel sax ku dhacdo marka horeba wasiir cabdirasaaq gacantiisa ma soo marteen shuqul kuma lahayn isagoo wasiir batrool buu ahaa wasiir batrool ama wasiirna shuqul kuma leh lacag qabashada dawladdu waxay leedahay akoon maaliyadeed bay leedahay oo haday arintan run tahay oo sax ay tahay wasiir cabdirasaaq gacantiisa ma soo gashay marka hore wasiirka maaliyadda xafiiska maaliyadda akoonka maaliyadda lagu hagaajin lahaa haddii xasan iyo isaga ay ku heshiiyeen wasiir cabdirasaaq oo lacagta inoo qaad oo hadhow aan qaybsanana de laba tuug bay ahaayeen marka tuug dhacay weeye ceebna kuma laho waligeed laba tuug haday wax ku heshiiyaan ay isdhici jireen marka wasiir cabdirasaaq eed gaar oo uu yeelanayo ma jirto laba tuug oo isdhacay weeye taas baana loo badinayaa oo lacagtan waxa loo badinayaa in xasan uu yiri wasiir cabdirasaaq oo lacagta inoo qaad oo labadooda meel hebla waxa weyn oo kala shub adna inta qaad wasiir cabdirasaaqna maadaama madaxweynuhu uu wax boobayo malaayiin dollar u qaadanayo inuu wixiisi intuu qaatay uu kaligii qaatay oo meel ku shubtay oo uu yiri soo xilku laga qaadi ma wax ka badan lagu sameyn de lacagtaas ninkan gacantaada ha marin kolba brito xilka laga tuuri waa macquul marka arimahan marka ay soo bandhigeen waxay fadeexad ku tahay xasan sheekh maxamuud labadaba ceeb bay ku tahay cabdirasaaq iyo xasan laba nin oo saaxiibay ahaayeen laba nin oo lagu waxa weeye ku soo heshiiyay wax bay ahaayeen wixii ay ku soo heshiiyeen wax ka hirgalay ma jiro xasan iyo cabdirasaaq waxay ku heshiiyeen war labada maamulayna aan kala labada qabiilayna kala hogaaminay Hirshabelle wada degan u badan waxa weeye idinku adiguna madaxweynaha qaata anagana waxa weeye caasimadan qaadano waxba kama hirgalin inuu markay tuu lacag iyo wuxuu xaaba karo uu xabxaabto uu iskaga tago yaa uga fiican sababtoo reerkoodii meesha way ku dulman yihiin way ku baahan yihiin waxba kuma haystaan waa la gacan bidixeeyay inuu iskaga tago way u fiican tahay taasi waa mid horta waa wasiir cabdirasaaq oo wasiirka batroolka iyo macdanta ee Soomaaliyeed walow isagu uu afkiisa ka qirtay qadiyada Hirshabelle inuu kursigiisa ku waayay oo xilka qaadistiisu ay sabab u tahay sida isagu uu shaaciyay laakiin arrimaha waa arrin UPD ka soo iyo wax fadeexadeeyay lahaayeen wasiirka ceeb u raadinayeen laakiin madaxweynihii bay dhiiqa dhex fariisiyeen oo ay ku cadeeyeen wixii awal horeba lagu xamanayay ahaa musuq maasuq oo deesagu horeydiisa gadaashiisaba musuq maasuqa ayna iska muuqatay dhulkii boobkiisa waxyaabaha la qaadanayo waxa la boobayo waxa la dhacayo waxa la kala goosanayo dhulka danta guud ee wixii oo dhan oo la iska xaraashayo badii iyo wixii oo dhan la xaraashanayo badiya bariba oo madaxweynuhu de wixii sabay way banaanka iska taabo bay hadana iyagiina ku sii cadeeyeen taasi waa dhinaca kale gobolka Gado arinta ka socota waxaad moodaa inay ka darnaan doonto saadaasha laga bixinayo arintii raaska booli ceebtii dawladda federaalka ka soo gaadhay haddii dawladdu ay noqoto bilaa qorshe bilaa hadaf bilaa dhiirigelin bilaa ajenda la'aan hadday dawladdu noqoto de raaska booli oo kale ku soo dhamaanaysaa ciidanka qarankana waa la halaagayaa gobolka Gado in ciidan dawladdu ay keento oo la xoreeyo waliba jubbada dhexe la aadiyo oo labadan kooxood ee Axmed Madoobe iyo kooxda Khawaarijta laga xoreeyo dhulka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ummadda reer Jubbaland isbedel ay helaan waa arrin fiican dawladdu inay ciidan halka keentana kama xubina waa jecel lahayd laakiin ciidan qorshe la'aana ciidan hadaf la'aana ciidan ajenda la'aana de waa tii raaska booli bay noqonaysaa ceeb bay nagu noqonaysaa dawladdeennana ceeb bay ku noqonaysaa dawladdu iyadoo oon odayaashii dhaqanka xirxiranin oo la hadlay waa meesha kaliya fiiri gobolka degmada Garbaharey waa meesha kaliya ee mas'uuliyiinteedii xataa 100% ay si toos ah dawladda u taageereen waxa la reebay markay sidaa dhacday in dhaqaalaha badan ee banaanka lagu kala gogoosanayo
in odayaasha dhaqanka ee garbahaari oo kale lagu asqeeyo odayaasha loo wada yeero la yiraahdo war maamulka Axmed Madoobe maxad ku qabtaan ayaga ba hadlay waxay sheegeen waxa ay ku qabeen maamul anaga ma baliin bay maamul goboleed anagu kama tirsanin dawlad federaal waxba kama helo labadaba mid kama helayeen waxa la rabay odayaasha dhaqanka fartaag meesha uu iska dhacna caleeyahay meesha iska fadhiya lama rabine dhaqaalihii loo soo dhiibay hadduu wax loo soo dhiibin inta wax fiican loo dhiibo in odayaasha horta uu kow ka bilaabo odayaasha la dilo la seexiyo la yiraahdo maxad qaadataan waxba odayaasha Soomaha kun dollar oo biira bisha qaata dawladina taageera hadaba maxad ku qabtaan waxa kuma qabno kow maxad rabtaan dawladda rabnaa buundooyinkan loo dhisan rabnaa waa la inay dhisay buundooyinka soo calaamadeeyay inta buundooyin oo waaweyn dawladda ay ballan qaado dhaqaale la siiyo odayaasha baahan ee aan maamulba wali aragsiyaad barasay u dhacday aan waxba arkin in wax la siiyo la fariisiyaa la rabay dawladdu ay xagga taageero ka keensato odayaasha dhaqanka ay gacanta ku dhigto si qabqablayaasha ay gacanta ku dhigto nimanka waxa weeye qaaqlayaasha ay gacanta ku dhigto muqayyiliinta ay gacanta ku dhigto bahal inay saa dhahdaan rabay horta wax iska hormariso laakiin dawladii كينتي لو سو ديبي باسا ميل لا سيخانيا فرتاك odayaashii maanta yaale waxa la yiri warada Axmed Madoobe ma naqaano xasanna ma naqaano nooga baxay leeyahay gobolka Gadow amni darra naga abuurina baa leeyahay naga abuurina ma doonayno gobolka amni baan ku haysanaay amnigaanada ku ciyaarinay ilma Maryaalow aan isdayna baa lagu yiri baladu ceebtay talaagtay baladu fashilkay tu leeyahay arinta marka gobolka Gadow dawladdu ay ka wado hadii sidii raas Kambooni ay doonayso adeer la yeeli maayo ka daayo gobolka Gadow ha qasinaan leenahay haddii ay qorshahoodu ay ka go'an tahayna lacagahan ay xamar ku cunayaan waxa weeye malaayiinta dollar ay u kala qaadanayaan ha keenaan gobolka Gadow oo ciidanka dhalinyarada odayaasha culimadiinka cid walba haweenka qaybahooda kala duwan waxa lagu kardaadiyo shacabka ha kasbadaan ayaga shacabka wax walba ku filan ayadoo ciidan la keenin baa Axmed Madoobe leeyahay ku diiday oo fikir fadhi kismaayada kuma rabnaa la dhig Maryam baa tahay baa la dhig runta loo sheegay hadii kale to de waxa weeye adeer meel ho u baahan hadal waxba kama tare dawladdu dhaqaaqyada ay ka wado gobolka Gadow ha ka dayso shacabku dawladdu u baahan yihiin dheefteeda inay dhadhamiyaan bay rabaan wax qabad dawlad inay helaan bay rabaan gacantu inay ka soo horeysay rabaan boogihii hore ee laga waxa weeye dhibaatadii loo geystay in laga dhayay rabaan ma doonayaan afqalalan iyo qalalaase in la iskugu daro ma doonayaan dooni maayaan Axmed Madoobe ma rabaan dawlad federaal hadii waxba wadanin oo waxba ka soo horeeynin oo dheef lagu qabina iyadana dooni maayaan annagana ku raacsan taasina waa xaaladda gobolka Gadow Axmed Madoobe waa nin khiyaamo badan waa nin waxa weeye dabamaro badan waa nin balaayo iyo jin iyo sixir wuxuu adeegsadaa la garanaynin ciidanka dawladda intii meesha la keeno iyadoo taageerana shacabka aysan ka haysanin oo lagu taageersanayn si raas Kambooni la iska keeno dhibaatadii raas Kambooni ka dhacdo kala ciidanka ku dhici marka madaxda dawladda waxaan leeyahay war bal dib ha la iskugu noqdo qorshaha hadda ku socotaan ciidan lama diidanay laakiin qorshaha ku socotaan qorsho Axmed Madoobe iyo argagixiso toona wax looga qaadi kara ma aha wax ka bedelan leena